dowladda Mareykanka ayaa ku dhawaaqday inay cunaqabatayn ku soo rogayso gudoomiye ku-xigeenka ururka Al-Shabaab ee dalka Soomaaliya Abuukar Cali Aadan. dowladda Mareykanku waxa kaloo ay sheegtay inay xayirayso in wax xidhiidh oo dhinaca dhaqaalaha lala sameeyo Abuukar Cali Aadan oo isagoo ah gudoomiye ku-xigeenka ururka Al-Shabaab. Mareykankuna waxa ay sheegeen in ninkaasi loo aqoonsaday inuu ka mid yahay argagixisada waaweyn ee caalamiga. warkan oo ka soo baxay wasaaradda amuuraha dibadda ee dalka Mareykanka ayaa lagu sheegay in la xanibayo oo la xayirayo wixii lacaga ee ninkaasi u yaallaba la yidhi dhulka Mareykanku ay ka arrimiyaan, isla markaasna la mamnuucay in wax xidhiidha oo dhinaca dhaqaalaha ninkaasi lala sameeyo. waxaa lagu soo warramayaa in warar aad u yar iyo macluumaad aad u kooban laga og yahay ninkaasi Abuukar Cali Aadan. ururka Al-Shabaab ayaa dowladda Mareykanku waxay u aqoonsan tahay inay yihiin argagixiso, waxaana hore sidan oo kale ay ugu soo rogeen garaxyo kuwan la mid ah xubno sare oo ka tirsan ururka Al-Shabaab. in ka badan 30 weerar oo loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayaa sanadkii hore Mareykanku ay ku qaadeen dalka Soomaaliya iyagoo beegsanayay xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab oo weeraradaasi qaarkood lagu khaarajiyay. waxaana ay ahayd sanadkii ay ugu badnaayeen weerarada cirka ee Mareykanku ay ku qaadeen dalka Soomaaliya.